Hi guys, waana Jikosiin mar kale muuqaal cusub ku soo dhawaada idin leeyahay. Maanta muuqaalkan muuqaaladii hore aad buu uga duwan yahay. Maanta guriga waxaa ka jiray bulbulis ama madax shub hadba sida u taqaanid. Madax shubka horta waxa madax shub gorbay kugu dambeysay adiga hadda video fiirsanaya. Wallahi madax shubkii ugu horeeyay maanta aniga gacantayda ku sameynaya waa kan intaan noolaa ma garateen. Hadda meeshan maanta guriga madax shub laga qabaa digsigaas biyaha aan ku soo shubanayo waxa ku saar rabaa cambuuladii iyo wixii cuni lahaayeen dadka imaado madax shubka noo imaado. Hadda halkan waxaan ku haystaa cambuula Soomaaliya ku haystaa cambuulada wadankeena ku haystaa digirta la digir Soomaaliga ay burburina ku haystaa taasaan hadda soo dhaqaayaan rabaa inaan dabka ku hormariyo ayadii hadda dhaqaaya ma garateen si fiican u soo dhaqaa markuu saqdi waxa dhan ka dhameeyo yaan dabka saaraya bulbuliska iyo madax shubka waxa u maleynaa waa caado hore dhaqan hore Soomaalida dadkeena hore samaysan jireen laakiin waayahan dambe waa laga tagay anaga laakiin maanta waan sameysanaynaa ma garateen gurigeena bulbuliskan baa ka jiray wallahi laga ma sheekeyn karin maasha Allah marka hadda waxa waaye baan karinaynaa cambuuladana soo karinaynaa dadka la iskugu yeeraya maasha Allah hadii inta taqaan way taqaana aniga xitaa ma arkin meel lagu qabo bulbul nolosheeda hadda lay markii ugu horeysay ahayd maadaama maanta guriga bulbulis laga qabay waxaan dhaana sameynaa ma garateen marka dadkaas waxa iska dhaqaya cambuuladaas dab ku shubaya si fiican inuu soo kari doontaa nala soco ilaa dhamaadka bulbuliskeena sidoo noogu dhamaaday sida asxaabta ka soo qayb gashay maasha Allah inta waa inaba caadi ma ahan marka ana sameynaya dhahe wallahi waxa waaye dhaqankeena hore dadkeena hore bay samaysan jireen la dhahe hooyooyinka hore qof hooyo bulbul loo sameynin oo madax shubkan loo sameynin bulbuliska waxa la dhahay markay sadameysato way samaysan jireen hadda biyihii hadda way yaraadeen biyihii yaraa marka waxaan rabaa biyo inaan kordhiyo gabar iyo kordhinaysa biyaha waxa waa jawigana maasha Allah waa jawi roobeed dhulkii hooyo jawiga roob maasha Allah laga sheekeyn karo hadda kana biyihii waa la soo badiyay aan cambuuladii ku soo darsanaya cambuuladeedii oo nadiif ah soo dhaqay si nadiif ah ka soo dhigan ku soo shubaya maasha Allah tabarakallah waxa waaye had si fiican u soo karaysa waa aragtaan waa cambuula Soomaali ama digirta sida u taqaanaan Soomaalida digirteena Soomaalida ee wadankeena laga helo waaye wakan had si qurux badan inuu soo bixisa markasta waa fiirinaya u tagaya inay kartay inay adag tahay waxa dhan aad jeeynaya nagweyn oo meesha looga kala tagaa iska dhigaa ma garateen marka ina si fiican u habeeyaa hadda kadib saliidan ku daraya saliid waxa la dhahay way hadii cambuula karsanaysid oo saliid ku dartid saliid waxa way dhaqsi ku karinay ama dhaqsi soo kala tuuraysa adeeg ma sii ahaanayo markaas darteed hadda waxaan ku soo daray wax yar saliid ah waxaas kale aan ku soo daray waxa way qamadigan ku soo darsanaya qamadigaasna waa qamadi oo fresh oo fiican maasha Allah wadankeena qamadiga wadankeena maasha Allah asaa ku soo daray adoo ku soo daray biyo xitaa weeraan biyo kordhiyay maasha Allah waxa ku darsan kartaa oo kala bariis lagu darsan jiray zamaani ama cambuulada kale la isticmaali jiray aad waxa rabtaa isticmaali kartaa hadda maanta aniga qamadigaas iyo cambuuladaas aan ka sameynayna bulbulka guriga ka jiray marka biyaha igu yar biyahan ku dardaraya maasha Allah dhulka greenka oo jeedan dooga quruxda ilaahay noo siyaada nimcada iyo barwaaqada aan haysano nabadgelyo iyo caafimaad buuxana ilaahay noogu daro insha Allah marka shaqadeena halkaan ka sii socon doonta insha Allah waxa waaye marka la isku yimaado oo bulbulka ama maxaa la jiray madax shubka hadii la iskugu imaadana wada arki doontaan dhamaantiin hadda cambuuladeena diyaar waaye wax yar oo dhiman dhacaana ku jira markasta waa dhadhaminaya wax yar oo dhiman dhanka kale halkan waxa lagu karinayaa daangadi halkan lagu diyaarinaya ama qaloonka sida u taqaanid halkan lagu diyaarinaya isagana waxa waaye cusbeer lagu daro la soo dhanaanay waa kana soo la soo kari maasha Allah qaloonka horta yaa ila jecel wallahi qaloonka markasta waa iska jeclaa meel lagu karinayo waxa waaye maanta weelkaas dhan xitaa kaliya waa dhamaysan karaa laga sheekeyn karo qaloonka dhanka kale meeshan lagu diyaarinayo dhanka kale halkan hadana waxa lagu sii diyaarinayaa bun kan waa bunki yaa la rabaa in lagu shubo cambuuladaas bunkaas iyo qaloonkaas shaaha cadeyska ah laga sheekeyn karo faaraha way soo socdaan marka waxa hadda qaloonkii waxa lagu daraa in yar baa lagu darayaa bunkan yar loogu darayaa markuu bunkan soo karo soo kululaado xoogaha waxa isagana meel lagu shubayaa kadib hadana waxa la sameeynaa cadar sameyntii saliidi
iyo madax marsan lahayn waxaa dhaqanka waxaa bulbulkan ku jira la dhahay madax shubkan in oo saliid la sameeyo saliida oo maamooyinka madax marsadaan iyo dadka soo qayb galo meeshaas yimaada madax marsadaan iyo cadaro iyo waxaas la sameynayo iyadana waad arki doontaan iyadoo la sameynayo maasha Allah inaba caadi maahan waxaa waaye bunkeena hadda sidan uu diyaar ku yahay already wuu soo karay oo laga gadinayo kaliya meesha meel lagu shubayaa kadib haddana cadaradii sameyntoodii la galaya iyo saliidii dadku madax marsan lahaayeen imaado meesha inta cadar sameynta la galin haddana digsiga dabka ku soo ceshanay waxa lagu daraaya hadda aragtaan waa caanaha sidaas hadda la yeelayo oo digsiga bunka lagu shubo caanaha waxaa la dhahaa toor dhankeena waxaa loo yaqaana caanaha oo lagu darsan doono bunka iyo qaloonka qofka intuu koob ku shubto kusii dul shubanayo anaga dhankeena toor baa la dhahaa waa caanihi lagu toori lahaa bunka iyo waxaas lagu dhex darsan lahaa waaye adigana waxaa u taqaanid qaybta kommentiga noogu reeb magaciisa kale haddana kana caanihi markay soo qandacaan xoogaa soo rafeen ayaa laga dhigaya dabka waxaa ku darsanaya qaloonkaada iyo waxaada dhanka kale geeskan halkan haddana waxaa lagu diyaarinaya cadaradii waa catarkii iyo unsigii unsi wacan hargeysa la unsiga maasha Allah aad u caraf badan yahay dhanka kale meeshan waa gamba Soomaali gambooyinka hooyooyinkeena dadkeena xiran jireen oo Soomaalida waxaa waaye halkan wax noogu diyaarsan gambooyinka lagu soo diyaarinaya cadaradii saliida la isku sameynaya digsiga hadda waa laga soo dejiyo waa aragtaan waxaa waaye cambuuladii diyaar waa saan diyaar ku tahay way soo kartay kadib weelashooda loogu diyaarinaya waxaan la bilaabaa in la cuno oo dadkii iskugu yimaadaan halkan haddana waxaa lagu diyaarinaya saliidii waaye wax halkan lagu sameynayo oo cadarada la rabo in lagu shubo oo dadka madax marsadaan meesha yimaado cadaradaasa lagu daraya saliida hadda ujeedaan saliidii weelka dhan meesha lagu shubaya cadarada waa la wada furaya waa lagu daraya unsiga sidoo kale qaar lagu daraya hal cadar ma lagu daraya cadar badan lagu daraya saliida dhamaantood lama wada furaya laakiin mid loo furaya waa lagu daraya lagama sheekeyn karo carafteeda wallaahi maasha Allah waxaa waaye qofkii ka gaara madax marsanaya qofkii rabo meel loogu shubaya waa sidaas sida dhaqanka maasha Allah sidaas hadda la isku dhex marinaya saliidii cadarka waa aragtaan dhankiina ma laga sameystaa madax shubka ama bulbuliskan xilliga hooyooyinka xaamilada ay yihiin oo xilliga dhalmada ay usoo dhow yihiin saliideen hadda iyadoo sidaas madax loo marinayo dadka dhanka kale inta waxaa lagu diyaarinaya cambuuladii la ridaya la cuni lahaa cambuuladii maamooyinka cuni lahaa sabtan kaliya waxaa imaanayaan dumarka bisaa laga rabaa ayagaas cambuuladooda cunaya saliidahooda madax marsanayaan kadib way duceynayaan kadib waa la iska sheekeysan waa la iska baxaya ma garateen sabtan wax rag iyo waxaas ku saabsano quraankeena isaga wax lala bardhigaya malahan quraanka markasta in akhrisatid waa hooyada markay xamilka tahay markasta in quraan isa saarto xaaladu kasii dambeyso ma garateen marka bulbulkan iyo waxaan wax shubkan waa iska caadi dhaqameeda fila sidee tahay ayadana waa la iska sameystaa walaahi ma garanayay wadamo gobolaha Soomaaliya waa laga yaabaa inay ku dambeyso gobolkiina adigana hadii daawanaya hadii waxaa way aad sameysataan qaybta commentiga noogu reeb waxaa waaye hadda cambuurada soo riday aragtaan waxaa lagu diyaariyay qoloonka lagu daray dhanka kale shaaha cadeyska ahaa iyo bunkii iyo waxa la isku tooraya qaloonkana la isku daray ayagana sidaas lagu cabayaa maasha Allah asxaabta markay diyaar soo noqdaan ayagana waa arki doontaan dhamaantiin waxaa idin codsanayaa hadda muuqaalka halkan soo gaartay inaa like gelisid iyo share gelisid aad iyo aad u mahadsantihiin dhamaanteena